kuma saaxan maalina kuma soo toosin Soomaaliya iyo Brazil in marba calanka ama atamka ciyaartooyda Soomaaliya ciyaartooyda Brazil oo isgarab taagan in calankii labada calan la qaadi doono laakiin kan Ilaahay wax walba waxba kama aha qofkii halkaan qaranka aan wax tari karin runtii waxaan ka codsanayaa qaranku waa naga dhaxeeya shakhsi aniga qof waas dagaali karnaa hebel qof waas dagaali karaa laakiin wax walba waxaa ka weyn qarannimada iyo sharafta dadka qaar dad waxaan ka codsanayaa haddii aad qaranka taageeri karin u ducee haddaad u duceyn karin afkaaga iyo adinkaaga ka hayso aniga guddoomiye legend Dr. Yusuf Shaqaaq go-aan waxaan qaadanay in aan ilaahay hadduu yiraahdo 2018ka aan qabano Soomaaliya mudane bakin Soomaaliya ayaa markii ugu horeeyay taariikhda ka qayb galaysa ciyaaraha adduunka ee World Mini Football Cup adiguna waxaad ka mid tahay madaxda hogaaminaysa ee xulka qaranka Soomaaliya marka adigoo soo koobaya maxaad arintan noogu sheegi karaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim wadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa oo runtii sportiga jecel waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa waxay ii tahay farxad aad u weyn inaan soo booqdo xafiiska journalka Somali Times iyo website-ka xidigaha oo madaxda ka yahay adadkana uu ka yahay Maxamed Basuri marka runtii waxaan ku leeyahay aad iyo aad baan u faraxsanahay teamkaas xidigahana uu ka mid yahay wiilkayga Maxamed runtii caawa arkaysaan dushayda waxa yaala oo koob iyo bilada ay qaadeen kooxda xidigaha marka runtii waxay ii tahay caawa farxad waana kaaga mahadcelinayaa aqbalka iga aqbashay inaan warbixintan caawa aan u gudbiyo ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad fursaha ugu badan yahay oo ku xiran website-kaaga xidigaha Facebook-ka xidigaha iyo journalka sanad guursaday sanadkii 11aad oo hadda marayo ana bil walbana uu soo baxo laba jeer soo baxo oo journalka ugu dheer waddankan Canada ee Toronto ka soo baxana ah ilaa haddana istaagin marka runtii waxaan ku leeyahay Basri waa mahadsan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo website-kaaga iyo journalka iyo xafiiskaaga caawa codsigan kaa codsaday ayaga yeeshay runtii haddii aan usoo laabto Basri su-aasha ay weydiisay oo ah maanta horumarka runtii Soomaali meel ay joogtaba ee aad ugu faraxday markii ugu horeysan ay tahay Soomaaliya ay ciyaaro adduun ka qayb gasho aan u soconno waddanka Tunisia oo ay ka dhici doonaan ciyaarihii adduunka ay isugu imaanayaan ilaa Africa, Europe, Asia adduunka dhan isugu imaanayaan runtii waxay noo tahay farxad haddaan nahay magaca Soomaaliyeed iyo calankii buluugga ahaana waxay u tahay farxad ciyaartaasna runtii Soomaali ahaan calankeedii ayaan uga qayb galaynaa waxaana ku jirnaa sidaad runtii aragteen oo meel kasta ka aragteen meelaan weligii allahin Soomaali aan ku haminayn hamigaas oo ahaa meel in la gaari doono laga warqabin laakiin Ilaahay xaggiisa waxba ka ahayn dad ragna usoo shaqeeyeen waqti badanna u geliyeen oo jironigaasna uu yahay Soomaaliya, Brazil, Russia iyo Ukraine ciyaar ay wada ciyaarayaan ciyaarta wareysan la ciyaari doono bishii 8-deeda kooxda qaranka ee Russia ciyaartooydan xulka qaranka Soomaaliya ay ka qayb galaya tartankan waxaa laga soo xuleeyaa kooxaha ka jira dalka gudihiisa mise qaar baa ka imaanaya dibadda Basri markii runtii aan aragnay anigu waxaan ka mid ahaan jiray 2010kii macnaha waxaan ka mid noqday gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta runtii Soomaaliya macnaha half nation ku dhawaad waxay jiraan dibadihiina runtii waa aragnay mirahooda iyo faa'iidada dhalinyarada dibadda joogta talentigooda iyo awoodooda iyo conditionkooda waa aragnay taas oo aan ku baroobeynay ciyaarihii anigu aan laftigayga kaxeeyey waan u kaxeeyay basketballka waan ku soo ciyaarnay ciyaarihii intercity-ga
guulihii waaweynaa aan ka keennay Soomaali oo dhan baa ku faraxday labada jeer aan tagnayba labada jeerba aan soo galnay finalka marka runtii Soomaaliya awoodeedii iyo dhalinyaradii aad iyo aad opportunity aan heli waayey waxay ku nool yihiin dibadaha marka haddaan usoo laabto su-aashaada ciyaartooyda waxaan kasoo xulaynaa gudaha laakiin 80% waxaa laga keenayaa dibadda. ciyaartooyda aad soo sheegtay haddii ay dibadda ka imaanayaan yaa soo xulay sidaas loo soo xulay? runtii waxa way waa su-aal muhiim u ah waa waddanka gudihiisa waxaa kasoo xulaya oo jooga ilaah waaweyn waaxida macalinkii runtii anigu aan dreamka weligay aan jeclaa inaan siduu u ciyaaro ama istaalkiisa aan u ciyaaro waa kabtankii qaranka Soomaaliyeed kabtankii kooxdii Horseed oo la wada garanayo magac laga maskiino maahan waa macalin Scott Capitano qaran macalin kabtankii qaranka ayaa wuxuu ka yahay macalinka koowaad ee kasoo xulaya Soomaaliya waa kabtan Scott macalinka labaadna waa macalin aad iyo aad Yurub magac weyn iyo sharaf weyn ku leh dhalinyaro badanna tababaray ilaa heer weyn la gaarsiiyey waa macalin oo ku nool asagana Sweden oo la yiraahdo macalin Macow oo runtiina aad ugu faraxsanahay inay ka mid yihiin caruurtiisa oo ka ciyaara divisionada labaad biiga ka ciyaara marka dibadda Yurubna waxaa kasoo xulaya waa macalin Macow magaaladan anigu aan joogo Canada runtii anigoo bakina oo ciyaartooy fiican ahaan jiray iyo rag kale oo macallimiina iyo rag kale oo laacibiintii seeraada qaranka Soomaaliyeed halkan joogay oo aan la tashaday aniguna waxaan kasoo xulayaa magaaladan waddankan Canada waddankan Mareykankana waxaa kasoo xulaya isagana nin kale oo aad iyo aad qiimo u leh oo ahna afhayeenka Somali Women Football ahna gudoomiyaha North America oo nin aad iyo aad active u ah oo runtii active-nimadiisana aan aad iyo aad ugu faraxsanahay si gaar ah oo Xasan Goodax ayaa isagana kasoo xulaya marka daan usoo laabto lowla anu mas'uul ka ahay magaaladan Canada ee Toronto waxaan anu kasoo xulay because Canada waxaa la siiyey 3 ciyaartooy waxaa la rabaa ciyaartooyda adduunka oo dhan in laga keeno si ay dhalinyaradu isku bartaan integration ka dhex dhaco ay walaaloobaan isdhexgal oo ka yimaado anigu magaaladan Toronto waxaan kasoo xulay 3 ciyaartooy waxaan ciyaarahaas kasoo xulana ciyaarihii ka dhacayay Somali Week iyo xagaagii ka dhacay magaaladan Toronto ee isugu yimid oo ciyaarahaasi lagu kala qabtay laba kala duwan ay kala qabteen ururka Today iyo ururka Sosco ayaa halkaas waxaan kala soo baxay 3 ciyaartooy runtii ciyaartooydaas aniga iyo rag kale oo laacibiin ah macallimiin ah ayaan la kaashaday waan isla garanay ciyaartooydaas oo runtii kala ah kooxdii Orowa oo ka timid waxaan kasoo xulay ciyaartooy ah runtii aad iyo aad u qiimo leh future-kana kula banoonigan wax ku lahaan doona waa ninka la yiraahdo Daoud Maxamed Daahir oo ah marna ka ciyaara midfield marna ka ciyaara ataganto kooxda labaad oo aan kasoo xulay ciyaartooy waa kooxda xidigaha oo anigu markasta aan xidigahan ahay taageerayaasheeda oo wiilkaygana uu ku jiro Basuri maanta iga qaadayana waraysigana uu yahay ownerka ninka aasaasay oo hadda waxaana kooba oo korkayga yaalana ay soo qaadeen dhalinyaradii oo asagoo tababarayay isaga iyo macalin Shiino iyo macalinka kale magaciisa oo hadda iga maqan yahay iyo kooxda saddexaad ninkaasna magaciisa waxaa la dhahaa Maxamed Turki oo magaciisa loo yaqaan Maxamed Turki waa Maxamed Cabdulqaadir Xasan oo runtii isagana ah لاعب مرنا كعيارة midfield مرنا كعيارة دفاع because waxaan ugu talagalay hadii ciyaartooydu inuu laba position ka ciyaari karo laacibka saddexaadna waxa weeye waa laacib asagana ka soo xulay kooxda magaca weyn oo faca weyn leh oo magaalada Toronto kooxda ugu weyn ilaa haddana magaceedu uu weli taagan yahay oo runtii ah kooxda Banaadir oo runtii aan dhihi karo asagana ownerka ka yahay odaga magaalada macalin Nuuraaye kooxdan ay ka yihiin sida Xasan oo macnaha ninka la yiraahdo Faris iyo Xasan Cawle ninkaasna magaciisa waxaa la dhahaa asagana Maxamed Diiri oo loo yaqaan Bibay
marka saddexdaas ciyaartooy ayaa aniga la siiyey Canada saddexda ciyaartooyna waa diyaar insha Allahna waxaan jecelnahay anagoo caafimaad qabna inaan maalinta Talaadada halkaan aan ka duulo tigidadii iyo baasaboorradii iyo fiisadiina wax walba gacanteena ku jiraan maanta oo Talaadana waa Talaadada maanta aan Talaadada kale aan ka baxayna magaalada Toronto. tirada guud ee ciyaartooydu waa imisa? tirada guud ee ciyaartooydu ma Busuri waxa weeye waa 15 ciyaartooy. sidaad sheegtay ciyaartooyda xulka qaranka intooda badan waxay ka imaanayaan dibadda macalinkana wuxuu ka imaanayaa Soomaaliya waxaana laga yaabaa in ciyaartooyda qaar aan weligiiba arag iyagoo ciyaaraya marka soo lagama yaabo inay taasi xilad noqon karayso. runtii waa su'aal aad muhiim u ah runtii waa la socotaa Busuri qoraaweyn baa tahay journalista tahay ciyaartooyda adduunka qaramada ka ciyaara adduunka waaweyn ee dhaqaalaha haysta ciyaartooyaasha ugu waaweyn kulli waxay ka ciyaaraan dibadda laakiin macalinka oo qaranka loo dhiibayo ayaa wadankaas iyo juuriyada iyo dadka oo dhan ay kalsooni ku qabaan conference ku qabaan marka anaguna sidoo kale waxaa macalin ka ah meeshaan nin intaasoo sano macalin soo ahaa kabtan soo ahaa waa macalin Scott iyo macalinka assistantkiisa macalin Macow marka waxaan aad iyo aad conference ugu qabnaa Scott markay u tagaan ciyaarta intaan ciyaarin waxaa ciyaaru noo bilaabanayaan anaga ciyaarta oreysa waxaan leenahay 8 waxaan anagu tagaynaa haddii Ilaahay yiraahdo Tunisia 4 bari meel laga haysta male ciyaartooyda adduunka qaramada waxay haystaan markay kasoo tagaan kooxdooda ama qaranka u imaanayaan waa la socotaan 2 bari 3 bari haystaan marka conference iyo kalsooni fiican ayaan ku qabnaa macalin Scott inuu ciyaartooydaas ku kala saari karo una arki karo mid kasta skillskiisa iyo positionkiisa iyo adkaysigiisa marka arrintaas waxaan kaaga jawaabayaa kalsooni aad iyo aad u weyn ayaa waxaan ku qabnaa kabtankii qaranka Soomaaliyeed macalin Scott oo khibrad iyo waayo aragnimo ku filan waligiisna intuu ciyaartooyda ahaa oo qaranka ciyaariyay iyo markuu kabtankii labada kabtan oo ahaa horseed waa la socoteen anoo dadkii aad u jeclaabaan ahaa wuxuu ahaa nin kooxda gadaal ka wada marka su-aashaad waxaan kusoo gabagabeynayaa kalsooni aad u weyn ayaan ku qabnaa macalin Scott 3 bari inuu ku kala ogaanayo ciyaartooyda conditionkooda aqoontooda iyo knowledge-gooda. sida la socoto xulka Soomaaliya wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo group C oo ay ku weeliyaan Brazil, Bosnia iyo Russia marka adigu rajo intee la eg ayaad ka qabtaa in xulka Soomaaliya uu ka soo gudbo wareegga koowaad? runtii Busuri su'aasha haddaan kaaga jawaabo waa su'aashii macnaha la weydiinayay markaan dhalinyaradii baasidka aan u kaxeynayay Tanzania la weydiiyey laakiin uu dhalinyaradana ka kaxeynaysa North America see rajo intee la eg baa ka leedahay oo raggaas waaweyn oo Afrikaanka intaa jiray la ciyaaraysid rajo intee la eg ka leedahay aniguna aad baan ugu kalsoonahay dhalinyaradan waana aragteen waana markhaati baa ka ahaydeen inaan kooxihii Afrikaanka oo dhan oo basketballkii intercity-ga Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan kulli aan ka raynay runtii aan dhaaf weyna kooxdii Cairo marka su-aashaas waxaan kaaga jawaabayaa Busuri runtii rajo aad iyo aad u weyn baan ka leeyahay lowlaa ay Soomaaliya weligeedii allaheed lagu tuhunsanaa inay aad iyo aad ugu fiican yihiin garooniga gaaban iyo garoonka yarka ay ku fiican yihiin talentogoodana aad u fiican yahay dhalinyaradan dibaddana waxaan u xulanay waxaan ka mid ah kondishinadooda iyo adkaysigooda oo aad iyo aad u fiican marka runtii tan Ilaahayna waa gooni Soomaalida insha Allah waxaan rajaynaynaa sidii aan uga farxinay ciyaarihii intercity-ga oo lagu ciyaari jiray basketballka inaan marlabaad ummadda Soomaaliyeed ee taageerayaasha iyo calanka buluugaba inaan ka farxinay insha Allah. weligaa ma ku fikirtay inay mar un wada ciyaari doonaan Brazil iyo Soomaaliya? waa Busuriyo 2 dream ayaa maanta horteeda yaala weligay nin aan aad u jeclaa oo markaan uu barnaamij ciyaari jiray Bakken baa la bixiyay Bakken oo asaga ranaysa waa Faransa Bakken Power buu ahaa ugu magac daray magacaasna waxa uu bixiyay walaalkay saaxiibkay Cabdifatax Maryare oo kooxdii Holodaag markaa ciyaaray kooxdii Barjeex ee Holodaag ayaa magacaas ii bixiyay sababta lagu bixiyana waxay ahayd xoogaa difaaca aan ka ciyaari jiray aniga iyo walaalkay ninkan Yusuf Dare oo aniga isku ahaan quattro iyo jingo isku ahaan badan waxaan ciyaari jiray sidii rag midfield dhacay ka ciyaariya dhaxda taasna waxay ahayd daawashooyinkii aan daawan jiray oo ma ay ahaa role model ay ahaa macalin Scott
iyo macalin shash labadaas nin oo difaaca ka ciyaari jiray labadooda kuwa trejin kala ciyaari jiray ayaa waxay aniga ahaayeen role model raggii aan ku dayan jiray oo sida u ciyaaraan aan ku ciyaari jiray marka maanta waxaa farxad ii ah anoo guddoomiye ku-xigeen ah oo xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ah inaan maantana oo macalin ka yahay ciyaarihii anoo aan xiriirkii anoo aan ka ahay guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed mini football aan ka ahay oo macalin ka yahay score taas waa number one waa dream oo runtii aan inaan jeclaa inaan maanta haddii ilaahay yidhaahdo aan ku kulmi doono tunisia inkasta hadda ka hor aan isku aragnay dabe tan labaad waxaa weeye habeenna kuma seexan maalina kuma soo toosin soomaaliya iyo brazil in marba calanka ama atamka ciyaartooyda soomaaliya iyo ciyaartooyda brazil oo isgarab taagan in calankii labada calan la qaadi doono laakiin tan ilaahay wax walba waxba kama aha wax walbana waa possible bay ka yihiin marka dreamkaas waa dream aada u weyn runtii laakiin mas-uuliga waxaan kuu sheegayaa inuuna ku imaan fadhi oo ku yimid dadba hurdo iyo hooy intaba seegay ayagoo raba calanka soomaaliya iyo qaranimada soomaaliya inay gaarsiiyaan runtiina waxaan rabaa halkaan inaan u bixinay haddaan nahay xiriirka mini footballka aan u bixinay calanside inaan halkaan ka iraado cabdixaaq oo lajana oo ninka habeen iyo maalin annagoo guryahana joogna sii dhoofayay soo dhoofayay haba tegaya meel waxaan leenahay cabdixaaq calanside calankii meeshaa geysay waa gaarsiisay waxaa kaloo rabaa xogaayaha xaaji aadan oo runtii isagana xamar oo aragteen maanta dhibka ka jira marna u duula jawhar marna u duula boorame marna u duula baydhabo marna kismaayo waxaan leeyahay xaaji aadan waxaan miraheeda waa la hayaa iyo guddoomiyaha caadaay oo aan dhihi karo aasaasihii iyo founderkii oo xiriirkan weye iyo guddiga intiisa kale oo aan mid u sheegi karin oo kamid yahay dacar oo ah ninka odaga oo UK Europe oo dhan ah guddoomiyaha ka ah iyo macalinka macow iyo intaan ka tago dhan oo kulligoodna waxaan leeyahay waa runtii waa maanta sharaftii iyo dadaalkii iyo waktigii dheeraa aa geliseen maanta maraheeda waa la hayaa ummadda soomaaliyeed iyo waktiga iyo timeka ayaana sheegi doona qofkii halkaan qaranka aan wax tari karinna runtii waxaan ka codsanayaa qaranku waa naga dhexeeya shaksi aniga qof waa isdagaali karnaa hebel qof waa isdagaali karaa laakiin wax walba waxaa ka weyn qarannimada iyo sharafta dadka qaar dad waxaan ka codsanayaa haddii aada qaranka taageeri karin u ducee haddaad u duceyn karin afkaaga iyo adinkaaga ka hayso adigana sharaf xumay kugu tahay sumcad xumay kugu tahay horumarkaa maanta la gaaray wuxuu u baahan yahay duco iyo taageero taasna waxaan leeyahay dadweynaha oo runtii ma maqlayo mararka qaarkood inay hadalla iska turtuurayaan hala xishoodo qarankana hala taageero haddii aan dhanka kale wax kaa weydiyo waxaa jira inaan goordhow kasoo laabatay London adoo kasoo qayb galay ciyaarihii Somali Week dhowr sanana halkaana joogta Toronto waana aragtaa ciyaaraha Somali Week ee Toronto lagu qabanayo marka haddaad isbarbar dhigto ciyaarihii Somali Week ee Toronto iyo ciyaarihii Somali Week ee London maxaad isleedahay way isaga weydiin maxaad isleedahay si way ku kala duwan yihiin runtii basuri aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa su-aasha ay weydiisay iyo su-aalaha ay weydiinaysid runtii horta basuriyow Somali Week oo wax loo baahan yahay waa wax ummadda waxaa la dhahaa bar kulanka la dhahaa waa dadkaas ku arka laakiin wax walba waxaa kala leeyihiin waxaa la dhaho number 1 priority number 2 priority number 3 priority runtii haddaan nahay reer Toronto number 1 priority-gii ay ahayd dhalinyaradeenna waa la socotaa basuri oo dadaa journalista ah journaalka magaaladan ugu weyn oo ilaa 11 sano soo baxa bishii 2 jeer soo baxa oo journaalkaaga Somali Times waan ragga ku xiran baan ahay markasta waan akhristaa waana daawadaa waxa weeye waa aragtay dhalinyaradeenii maalin kasta dilka dhibaatada xabsiga taasna waxa weeye waa dhalinyaradii waa opportunity-ga la siin marka runtii wixii aan kusoo arkay magaalada UK waxaan ku baxnay guddi oo reer Toronto ah guddigaasna waxaa hogaaminayay oo noo ahaa as leader noo ahaa nin doctor magaciisa aan laga maskiinin Soomaali oo dhan magac ku lahaa
torontona magac weyn kule ilaah waa magac leh waa doctor yuusuf shaqaaq oo la wada garanayo laacibkii centrocambistihii kooxdii LLBB ee Kenya ayaa wuxuu noo ahaa guddi annagoo noo ahaa hormood na hogaaminayay aniga Muxidiin oo garanaysaan Muxidiin SNTV laba nin oo ka socotay kooxdii Sosco Sheekh Maxamuud iyo Joof iyo macnaha Maxamed Tuke oo ka socday Tuke family oo ka socday inteenaas ayaan ku baxnay waxaan aanay Somali Week ee UK taasoo ahayd dhalinyaro under 18 runtii aniga wixii meesha tago dhan especially aniga Dr. Yuusuf Shaqaaq waxay nagu soo abuurtay qashuuc aad iyo aad u weyn qashuucaas oo marka aragnay dhalinyarada yararka edabta ixtiraamka tarbiyadda ragga maamulayay Somali Week-ga ay madaxda ka ahaayeen hadda kulligood magacooda halkan kuma soo koobi karo waa gudoomiye Xuseen Deeq xoogayana uu ka ahaa Slow odayna uu ka ahaa Maxamed Buube runtii iyo rag aad u tiro badan oo ahaa good farkli fool ma dhaqdee waxayna tuseen wax wada shaqeyn isku xirnaan dhalinyaro yar oo under 18 15 years old 16 years old 17 years old 17 years old oo banooniga ciyaarayaana inaba aan caadi ahayn marka runtii waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa halhays oo aad iyo aad qiimo lana waa ka soo qaadanay halhayskaasna uu abuuray uuna fakarka iska lahaa Liibaan Jangoon halhayskaas oo ahaa war caruurta macnaheedu ay tahay war dadka waaweyn haddaan ka dhigno number 2 iyo number 3 number 1 aan ka dhigno number 3 number 1 iyo number 2 aan ka dhigno caruurta si aan ilaahay wax badbaadiye caruurta u badbaadino marka runtii Somali Week-gaas wuxuu ahaa wax aad iyo aad u qiimo badan na soo qoshuciyana aniga iyo raggii la socday oo madaxda noo ahaana Dr. Yuusuf Shaqaaq waxay u maqalaa in sanadka soo socda 2018 guddi aad adigu ka mid tahay qaban doontaan ciyaar Soomaaliyeed oo aad u dhigi doontaan ciyaartooyda ay da'dooda ka yartahay 18 jir U18 marka arrinta maxaa ka jira runtii waxaan kuu sheegay Basuri oo aan ku leenahay qasho go'aankaasna aniga kaliya maahan aniga iyo wala socotaan magaaladan Toronto haddaan nahay bahweynta sportiga oo dhan maahan hal koox ama hal urur kaliya maahan Dr. Yuusuf Shaqaaq wuxuu oday u yahay oo loo doortay bahweynta sportiga ee Toronto ee kubadda cagta oo dhan ayaa waxaa loo doortay gudoomiyaha Canada marka aniga gudoomiye legend Dr. Yuusuf Shaqaaq go'aan waxaan qaadanay dowladda aniga waxoogaa dhinac active aan ku ahay aan ballan ka qaaday Shaqaaq aan isla garanay in aan ilaahay hadduu yiraahdo 2018 aan qabano Somali Week oo under 18 waxaana noo imaanaya oo caasimad already naga dalbaday annaguna ka dalbanay kooxdii soo qaaday Somali Week ee UK ee la yiraahdo kooxda Juba koox kalena waxay ka imaanaysaa ururka Suki ee wadankaas ka dhisan Sweden ayagana waxaa ka imaan doona koox under 18 kooxda sidoo kale Minnesota sidoo kale Ohio iyo kooxaha magaaladan ka dhisan oo adigu ka mid tahay kooxda Xidigaha kooxda Hilaac kooxda Horseed kooxda Samkey Muqdisho Dixon FC intaasna dhalinyaradaasna waxaan siinaynaa opportunity aan hore u helin oo markasta marka Somali Week u yimaado tarabuunka la saari jiray waxaan naga ballana haddii ilaahay yiraahdo in ayagu waxbay daawan jireen sanadka dambe ayaga la daawado aan u qabanana Somali Week Toronto waa big city waa magaalo weyn 5 ilaa 6 Somali Week u baahanta waxaan caawa halkaan meesha iska dareeyaa oo ka codsanaya labada urur ee magaalada waaweyn ee ka jira ururka Today iyo ururka Sosco inay noo sheegaan weegaga iyo waqtiga ay qabanayaan ciyaarahooda Somali Week si aan u kala leexino si ay ummadan reer Toronto u hesho summer fiican ciyaaro continuous waan ka codsanayaa madaxda sidaas macnaha ururka Sosco iyo madaxda ururka Today waan ka codsanaynaa waana la fariisan doonaa waana weydiin doonaa insha Allah arrintaasna waa dhacaysaa haddii ilaahay yiraahdo way dhacaysaa under 18
wax badan baa ciyaalku ayagu wax daawadeene in ayaga la daawado oo aan siino priority number 1 iyo priority number 2 labada jeer baynaan siino. mudane bakin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maxaad intaa ku dari lahayd. marka runtii Basuri waa ku mahad celinayaa aad baan ugu faraxsanahay caawa codsiga aan kaa codsadayna ay iga yeeshay weligaana waxaad sportigan North America especially Canada ilaahay ka sokow adin la-aanta meel ma gaaro Soomaalida waxaa ku maamaadaa dayaxna meel dhow gaaraa dhawaaqna meel dheer. marka Basuri arrimahana u haysay Toronto iyo North America oo dhan aan noo tahay halyeegeena qoraageena journalisteena waa kaaga mahad celinayaa taageerada khaaska aad taageeraysina Somali mini football. waxaan runtii ka codsanayaa dadka kale oo journalistayaasha adduunyada meel kasta kala joogaane ama Basuri ku dayda ama afkiina haysta oo annagaa dhibaataysano dhaqaalo xumo rafaad walwalba nahaye hanoogu dareena aflagaado ku dayda sida Basuri oo kale. marka hadalkayga waxaan kusoo koobayaa halhayskii Liibaan John Go'an oo ka ahaa UK war caruurta